Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la filayaa inuu kulan la qaato madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo ku sugan magaalada Muqdisho. Kulanka oo dhacaya maalinimada Barrita oo Khamiisa ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii wakiilada beesha caalamka gaar ahaan Mareykanka, Qaramada Midoobay iyo Boqortooyada Ingiriisku ay ku cadaadiyeen madaxda Jubbaland iyo Puntland inay la kulmaan Ra'iisul Wasaaraha. Kulanka ayaa waxa uu qayb ka yahay kulan duceedyada dhacaya ka hor shirka guud, kuna adkaysteen beesha lixaad inaan cidna ka baxaynin magaalada Muqdisho ilaa heshiis doorasho laga galo. Wakiilada beesha caalamka ayaa shalay waxay la kulmeen Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyaga oo ka wada hadlay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka doorashooyinka. Axmed Madoobe iyo Siciid Dani ayaa ka biyadiiday hanaanka ay dowladdu ku wajahaysa doorashooyinka iyada oo wada hadallada labada dhinac uu gaabis noqday kadib shuruudo ay miiska soo saareen Jubbaland iyo Puntland. Si kastaba beesha caalamka ayaa horey u kulan siisay hogaamiyayaasha dowlad goboleedyada oo si gaar ah uga wada hadlay arrimaha doorashooyinka sanadkan la rabo inay dhacaan. Dhinaca kalena waxaa hakad uu ku yimid shirkii u dhaxeeyay madaxda maamulada dalka, waxaana baaqday labadii kulan ee ugu dambeeyay ee dhici lahaa habeen hore iyo shalay ee ay yeelan lahaayeen madaxda shanta maamul. Shirarkan oo socday 4 maalmood ee la soo dhaafay ayaa midkii ugu dambeeyay oo dhacay galabkii Isniinta uu soo dhamaaday iyada oo dhinacyadu ay isku hayaan qodobo dhowr ah, waxaana baaqday kulan qorshuhu ahaa in dib la isugu soo laabto xalay fiidkii. Madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa rumaysan in caqabadda ugu weyn ay tahay in saddexda maamul ee kale aysan lahayn awood ay go'aan ku gaaraan markastana ay dib ugu laabtaan filla Soomaaliya ama ugu yaraan ay telefoon u diraan kadibna la soo bedelo mowqifkoodii, taasoo xalka sii fogeynaysa.